السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا بقى صاحبكي عادف laga yaabay dad badan inay isweydiiyaan ونو شخصيا هذا كهر wuxuu ka dhex muuqan jiray social media ama baraha bulshada maxaa dhacay amar leh hadaba intii aynu hawada ka maqnayn waxaan ogaanay caqabad taas oo dad badani dhammaantood wada haysata caqabadaas waxa weeye wax la yiraahdo dib u dhigasho iyo cudur daar waa qodobada qofka bini'aadanka sabab u noqda meeshuu doonayay xitaa inuu gaari waayo amar leh waxyaabaha aad isku arkaysay haddii xaaladda aad ku jirto inaad istaba qabatid baa wanaagsan waxaad arkaysaa adigii naftaadii u cudur daaraya yani tusaale ahaan maxaa samaynaysaa waxaad leedahay waxaan u baahanahay inaan waxa iyo waxaa qabto si aan u noqdo qofkaas waxaad dhahaysaa okay waa inaan waxaa helo waxaad dooranaysaa haddii waa wax culus ama adag oo sabab u noqonaya dib u dhaca xitaa amar leh kadibna wixii xitaa haddii aad heshid maxaad leedahay sidoo kale waa inaan isla shaygaa isna aan helo hada balday waxaa laga yaabaa sida ay sidaa u tahay waqtiyada qaar in adiga cajis ugu soo yarageliyo qof bilaadanka oo lagu yaqaanaa hawshaasi sida ay u socoto waxaa laga yaabaa inay kuu qaadato sanad iyo ka badanba amar leh qofka bilaadanka markaa muxuu u baahdaa dhiirigelin nafsaaniya haddii aadan helaynin asxaab ereyada yani agtaada joogto oo tiraahda war hebelow waxaan waa ku wanaagsanayd waayba u joojisay maxay tahay sababta aad u joojisay oo saa kuugu dhiirigelinaya haddii aad helaysid war nasiib wacan tahay ilaahay maad celi laga yaaba inaad hadda la yaaban tahay ninka saaxiibka ay ku dhiirigelinaya laakiin waxaa wanaagsan inaad dhegaysatid amar leh akhyaarta kalena waxaanu ku codsanaynaa in asxaabtooda kuwa ka midka ah ee talentiga ama hal abuurka leh ay ku ogyihiin war qofka inaad dhiirigelisaan adiguna beri ka maalin shayga aad u baahan tahay waxaad helaysaa cid kugu caawisa aanu soo noqono barnaamijkeennii cudurdaarkaas sidaas ayuu kugu soconaya maba dhammaanayaba hadda balday maba dhammaanayaba ilaa marka dambe aad soo gaadhid heer wax walba ay kuu dhan yihiin aad tidhaahdid wahsigii waad u gudbisaa markaa berri ayaan qaban doonaa shayga berrina wax la yidhaahdo dimaba jiroo la gaadhaba lama gaadhaba berri weligeed waa berri yaa kawar haddaad tidhaahdid harkaagii kuwa socda haddaad tidhaahdid madaxa inaan ku istaagaan rabaa ma gaadhays yaa aduun baa daalaya marka qodobkan labaad ee isna ah wahsiga waa beri baan qabanayaa hadda hawshaas igu hortimid isna laftigiisa waxaa wanaagsan inaad adigu iska waanisid haddii aad telefoonkaaga dib ugu laabatid yani aad egtid waxaad arkaysaa saacadba inay saacad kuu dhiibaysay halkaa intaa yar dhigtid telefoonka tiraahdid okay saacadaha aan gacanta telefoonka ku hayay 3-4 qodobee waxyaabihii aad ka faa'iiday marka haddii aad tiraahdid qodobee يعني aad iyo aad ba u yarata waana isku mashquulinaysa waxii rasmiga ahaa ee hadafkaaga weyn ku gaarsiinayay ilaa waxaa jira hadaf weyn iyo hadafo yaryar oo lagu gaadho amar leh dhammaantood waad iska diidaysa marka dambe waxaad arkaysaa adigoo asxaabtaadii yani xitaa qoyskii reerka adeerkaa iyo abtigaa iyo walaashaa iyo walaalkaa iyo yani maxilliga ay telefoonkooda ku soo wacaan adigu aanan garanaynin sababta aad u diidaysid nacayb iyo xumaan aysan ka ahayn
يا inaad dib u dhigtaa tiraad bal hadhowtaan waaya ya hadda telefoonkii xitaa isku mashquulinaysa bay kaa soo wacay asalaamu calaykum isku fiican tahay goor xaafadii ma iska wanaagsan yahay walaal wanaagsan tahay maasha allah waa intaa wixii lagaa rabay yarada ya xitaa haddii la odhan lahaa shaygan aad ka daawanaysid telefoonka waa wax saacad qaadanaya si aad bal uga faa'iidid ama ka yar barta maba ahanba waa qiimo yar yar oo shayba shay uu ka duwan yahay hambal yaanaya dadka iyagu wax ka barta maasha allah alxamdulillah laakiin dadkeena kale u baahan isbedel ayaan la hadlaya xaaladdan waan kula arkay aniga kula hadlay waan kula dareemi karayaa laakiin adiga iyo aniguba waxaan u baahannahay isbedel ma ihi dhiirigeliya shuqulku ma leh laakiinse sideedaba meel haddii adigu aad isku dayday inaad ka baxdid oo in yar oo tallaabo ah qaaday waxaa wanaagsan inaad dadkii ku tirahdid warbal halkan soo mara halkan ayaa yar banaana halkan ayaa meeshiinii aynu ka gaari karaynaaye tusaale ahaan haddii asxaab wada socotaan isla markaana meel god ah kusoo beegmatid adigu lugta aad la gashid miyaad u aamusaysaa jawaabtu waa maya haddii aad tahay qof dee saxdiya waxaad dareemaysaa yani mushkiladaas ka horeysa iyo waxyaabaha qofkan uu ka dhaxli karayo waxaad leedahay war halkan iska ilaaliya halkan god baa ku yaala bisinka ya iga raaleada haddii qaylaya buuq soo dhexgelayo videoga marka hadda waxaan ugu talagalnay muuqaalkan waa qayb ka mid ah broadcastingkeena aynu sii wadan doona insha allahu tacaala nafteenna iyo aynu ku dhiiragelinayno si aynu bal ugu yaraan waxaynu doonaynay aanu uga ag dhawaano laga yaabay inuu gaari weyne waana ugu hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaadba dadka sidii ay wax u doonayeen ugu socdaan maasha allah warbal commentiga si ay wax ku gaadhaan laftigeeda dadka kale la soo wadaaga amar leh waan inoo qodobayn lahaa oo inoo habhabayn lahaaye dhiirigelinta laftigeedii dee maanta xitaa aniga ay soo riixaan siri warbal dadka wadada yaa asla qaadaane isku soo dhawaada amar leh intaa ka bacdi waxaa aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaadba nafteena kula talinaynaa wal ugu yaraan maalintii shayga aad qabanaysid haba yaraado laakiin ha ahaado mid kamida kuwa ku gaarsiinaya qorshahaaga fog qodobkaa meel ku qor kun celceli meel dhago amar leh qof bilaadan baynu nahay ma qaybsami karayno shay kasta wax yar baynu ka qabanaynaa laakiin dheeli waxaad qabanaysid ha ka mid ahaadaan shaygaaga mustaqbalka fog adeegsanaysa meel ku yaalay halkaan oo isla garana ilaahna hayna waafajiyo qodobka labaad ama saddexaad aan ku darayo wuxuu yahay bay odhan jireen qoli ahaan mikrofoonka loo dhiibo moogta laakiin waxaa kuma darayaan wada waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anigoo saaxiibkiin